muddo sanado uu talada dalka hayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa safar waxqabad iyo waxtar leh ugu soo kicitimay gobolada bariga Soomaaliland. Shacabka magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa ku qaabilay wafdiga madaxweynaha dareen gacaltooyo xiise dareen wadaniyadeed oo laga dheehanayay kalsoonida ay shacabku u hayaan hoggaanka suuban ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kuna faraxsan yihiin. kumanaan kamid ah shacabka Burco ayaa madaxweynaha kaga hortagay deegaanka qoyta ee gobolka Togdheer iyagoo ku soo gulbiyay fardo. madaxweynaha Soomaaliland ayaa socod ku dhex qaaday shacabkii soo dhaweeyay isagoo dhoola cadeynaya isla markaana kor u taagay gacanta midig si uu salaamo shacabka tirada badan ee soo dhaweeyay. madaxweynaha oo la hadlayay dadkii soo dhaweeyay ayaa mahadnaq iyo hambalyo kadib waxa uu ka hadlay wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ka qaatay go'aan geesinimo iyo ku dhac leh. maanta soo dhaweynta iyo kalgacalka Burco aanay u kala harin marka la leeyahay madaxweyne soo dhaweeyay madaxweynuhu hebel ma aha xisbi gaara ma aha waxa uu saastaantii qarankiina soo dhaweynaysan dhamaantiiba oo ku mahadsantihiin. Soomaaliland wixii nabada way soo dhaweynaysaa, wixii iskaashanayna way soo dhaweynaysaa, in la ixtiraamana way soo dhaweynaysaa. Soomaaliland ka way ka sii adag tahay inamada xamare shalay jibcada quruma ka dhaxaysa security councilka ka soo hadal qaadiya Soomaaliland ee lahaa waa in la qabtaa waa go'doore waxaanu u sheegaynaa fawarqayntu maray ka dheer baan u maraynaa ballanna waxaanu ku qaadnay idinkoo yimaadaan oo xaqnimada oo golaha mooyaane inayna wada hadal barfadhiisa Soomaaliland soodaasho samada disheeyo xidiga hay ku socotaa soo noqona mayse sinadiyo walaalimo akala sarin jirin tamatiyo wanaaga Soomaaliland ku caantahay. afar canamal oo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku sugnaa Burco waxay ahayd maalmihii horumarka waxqabad iyo geedi socodka hanaan wanaaga xukuumadda ku hogaaminayso dalka. waxaana madaxweynaha Soomaaliland uu ku bilaabay xadhigga jaris mashaariico waxtar iyo mugle halka uu dhagax dhigay kuwa kale oo ka qayb horumarka xukuumaddu ka wado dalka. jeelka weyn oo magaalada Burco oo qaab casri ah loo dhisay ayuu madaxweynuhu xadhigga ka jaray dhismayaal cusub oo lagu kordhin doono cisbitaalka Burcana waa uu dhagax dhigay halka uu sidoo kalena rooga cagaaran oo la dhigayo garoonka Lamsi ee magaalada Burco oo baahi ballaadhin dhalinyaradu u qabeen uu dhagax dhigay. mashaariicahaasi ayaa qayb ka ah socdaalka guusha iyo waxqabadka ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku gaala bixinayay gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan kuwa bariga. gunaanadka iyo ka boqolka safarka madaxweynaha ee Burco ayaa lagu soo khatimay xadhigga jar iyo kormeer mashaariico ganacsi oo ka mid yahay suuq ganacsiyeed casri ah oo la dhaho Burco Mall iyo dhismayaasha suuqyo ganacsi oo kale. waxaa sidoo kale wafdiga madaxweynuhu indheeyeen intii ay ku sugnaayeen magaalada Burco suuqyada ganacsi ee Burco iyagoo daanshoonaya isla markaana lugeynaya. Cabsa Faarax Cabdilaahi TV qaranka Soomaaliland Burco.